dhaqankaas marka waxa uu liska soo gaaray waagii hore oo islaamku uusan dadka soo gaarin jaahiliyada ayaa la soo gaaray laakiin wali dhaqamadiisa qaar kamid ah meelo badan waa ka jira Soomaaliya waa kamid marka wayahay Cabdimahad takoorida asharaxday marka loo fiiriyo diinta islaamka maxay ka qabtaa marka loo fiiriyo diinta islaamka horta in qof la takooro islaamku ma qabo aslan in qof qabiilkiisa lagu yeeso ama lagu liido ama qof shakhsiyad ahaan xitaa loo liido islaamku ma qabo لأنه الله سبحانه وتعالى وحليه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ميزانك أو حلو إيه وما هرير هبل يلانديره لكن الله سبحانه وتعالى وحليه قال يسن قال كنت يستيسن وحاول أركابه كون لا يريسن هي الليدة هي الله ما لنا يعني دليل تيهين إن يكون في عين كو وحليده سيادة مركز إسلام كم قوا أصلا إلا إن دليل ليه لكن دتكو حسك ياخذ دم بدنا قبيلة ده هي قبيلك قبيل واجرا وقف كورير والنقون كلا لكن قبيل كيسي ظلم إن لو ظلميه أو لو ضربه أو لو عاية معها وذلك الله سبحانه وتعالى سجد هذا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ضدك وحنك أورنا لب يدك وحلا قد قبيل الله شعوب لكن وحصل لو قد وحوى لتعارفوا ضدك وين اسكو برتان واسكو قرتان وإلى ذلك كان وريره وكان وريره لكن إنه اسكو ظلميه ولا اسكو ديله واللي يسكول لي ما بل تا waxa ugu sii daran oo ummadaha oo hadda dadka isticmaala cirqiga iyo midabta koorka duleey oo hoos u sii reeyay sida Soomaalida kale waxa kamid ah nin xirfad yaqaan oo wadanka wax tari lahaa ayaa xirfadiisa lagu caayay markaas waxa leeyahay waa tumaal markaas waxa leeyahay waa maxaa la yiraahdaa waa kabatale waxyaabahaas loo bixinayo markaas waxa la waayay wadankii wixii biri tumil ah markaas suuqa maamul waxaan ka soo gadanayna nin kala soo talay ninka la soo tumay ama kaba ninka la soo talay oo lacag fara badan laga siiyay dadka xirfad yaqaanka ah ee ka shaqeyn lahaa ee sameyn lahaa Soomaalidan waxay u cararayaan in lagu ceebeeyo taa marka waxa waaye dadka bulshada dhan waxa la rabaa inay sida u fahmaan in ummadda aan la dibridin oo waxaas aysan cayb iyo cay ahayn oo la rabo ummadii cayb iyo cay u aragta waligeed waxay dulsaar ku ahaan ummadaha horumaray halka reer galbeedka iyo dadka oo adduunka oo loo fududeeyay ka shaqeeyaan ama horumar ama mushaar fara badan la siiyo ama la ikraamo oo jaayizooyin baa loo sameeyaa qofka oo biraha tuma warshad sameeya yani wax cusub adduunka qofka soo kordhiya birtuma anaga dhahno ama kaba sameeyaan dhahno adduunka wuxuu ka yahay wax macna leh oo qiimo leh waana la ixtiraamo waana la qadariyaa inaguna waan liidnaa meelaha laga qadariyo marka waxay gaareen heer dadka kale ay adoonsadaan oo iyagu ay wax u soo dhoofiyaan inaguna aan ku noqono cala calayhim dad iyaga dul saaran oo maamulba wax ka suga dadna wadankeena uu gaaro maradan xiran lahayn kabiyan xiranayni weelkeen wax ku cunaynay gurigeeni waxa laga sameeyo dhan waa waxaan soo wada gadan marka dulsaar baanahay qaraarna marka ma qaadan kartid waxay ku sheegaan waad qaadan dadka ay dhaxdiisina waad kala liidaysaa marka waa mushkilad aad u weyn marka taasna marka waxaan ogsoonahay bulshada Soomaalida inay tahay bulsho isku mid ah marka maxaa sababi kara in qabiil la isku takoro qabiilkii la isku takoro waxa sababayo ugu horeeyo waxa weeye waa wax horta la iska dhaxlo waa taan sheegnay dadkii hore jaahiliyada ahaa وإسلام كوري قبيلة waxay ka gaareen meesha ugu sareysay waxay dhigi jireen baa leeyahay gabayada kamida carabta la yasaluna akhahum hina yanduhum fi an-naibat ala ma qala burhana ninka walaalkooda markuu yiraahdo waa waray war dagaal baa jiray war soo kaca war waxaan horta madaalin baa tahay ma laga gardaray waxa mu wajin jirin kulli qoryahay qaadan jireen dagaalkay gali jireen dhaqankiisa ahaa ku soo duxay Soomaaliduna uu soo gaaray si uu socday marka Soomaalidii ayaa waxay noqdeen qabiiladii sidii ah ay sidii u qaateen halka laga reeyo Soomaalidu inay fahmaan dardaarankii ugu dambeeyay Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri inna rabbakum waahid wa inna abaakum waahid hal Allah subhanahu wa ta'ala yad'abudisan hal Allah leedihin hal aabana wad leedihin aadam baad ka imaateen kullukum li aadam wa aadam min turab aadam baa dhalay aadanna carradan uu ka yimid aad ku dul taagantihiin inna akramakum 'inda Allahi atqaakum ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ادعي واحد دير مجرته قف walba wuxuu shaqaysto oo ilaahay hortiisa uu la tago kuleeyahay adduunkana wuxuu shaqaysto ayuu horumar ku gaaraa marka waxyaabaha sababay waxyaabo ugu weyn waxa kamid ah wixii dadka hore la iska soo dhaxlay waxa sababay ugu badanna waxa kamid oo kale waxa la yiraahdo jahliga jahilnimada way keentaa qofku inuu qof kale u yeeso oo asaga laga yaabo inuu ka fiican yahay waxa kale oo kamid waxyaabaha sababay caadaadka dadku waxa laga yaabaa in reer hebel isma guursadaan ayagoo raba inay u soo daliishadaan mas'ala kuf la dhaho oo qofku u dhigma laga fiirinayo oo sharciga
laakiin mas'alada sharciga waxa weeye qofka ninka sheekha ee caalimka ee diinta yaqaan ilmihiisu ay wanaagsan yihiin nin kale oo faasiq ilmihiisu loogu guurinayo ilaahumay laba walaala kala dhasho macnaheedu ma laba qabiil isma guursan karaan taasna way ku daba qaloocatay dad badan oo waxa la rabaa in laga wacyi geliyo oo loo sheegana way xaq bay u lahaayeen waxyaabahaas iyo waxyaabo kale ayaa sababi karaan isleeyahay aniga aragtideeda marka qofka lagu takooro qabiilka ma banaanta inuu ka hadlo oo dhaho war anisa ima qabato qabiiladuna waa isku mid maadaama dadku ay yihiin dad ilmo aadan oo dhammaan dad bini aadam ay marka qofkaas ma banaanta inuu soo uga doodo taas inuu say kaliis ka doodo ma ummadoo dhan xitaa waa waajib saaran way isagana inuusan qaadanin oo dulinimo qofka muslimka dulli ma qofka muslimka xalay nabi sallallahu alayhi wa sallam almuslimuna waxa dadka islaamka waxa sawaasiya ka asnaan ilmist sida shanlada ilkeedoo kale u sameeyeen bay u sameeyeen waxa kale oo nabigu sallallahu alayhi wa sallam sheegay inay yihiin dadka akifaa bacduhum li bacdin waa isku dhigmaan dhiigooda qofka muslimka waa qof kale dhiigiisa waa u dhigmaa sharci ahaan waa u dhigmaa inaga aqli ahaan haddii nin la dilo hadda ninkaas waa reerkooda waa la is jiree konton aan siin ama 30 hal la siiyo cidna ma dhaxayso laakiin waxa way iyagu inay dulinimo qaataan ma aha iyagu waxa laga rabaa inay wax bartaan iyagu waxa laga rabaa inay dhaqaale abuuraan iyagu waxa laga rabaa inay wadanka hoggaan u noqdaan dadku iyaga dadka inta kale waxa la rabaa inay dadkaas walaalahooda islaamka ee wadanka la degan ee isku deegaanka yihiin ee isku jirka ay yihiin isku luqadda ay yihiin isku midabka ay yihiin isku dhaqanka ay yihiin inaysan midab takoor ku sameeynin oo la shaqeeyaan waxyaabihii hore turaadka ay la soo dhaxlay oo dadka hore ay ka soo dhaxleen ee dulmiga ku dhisnaan in laga tago